بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxad luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa casharadeenii xiisaha lahaa ee security and testing oo aan ku sameeyno tijaabo dhanka ICT ee security waa casharada xiiso badan runtii waxaana soo weydiiyay dhowr arday oo wax ka barta shabakada waa USB SPY 1.3 marka USB waan naqaanaa spyna waa basaasnimada lagu sameeyo waa software khafiif ah oo portable waxaa laga wadaa looma baahna in lagu duubo marka waa spy on USB contents waxaad basaasaysaa wax walba oo ku jira USB-ga tusaale ahaan software wuxuu u shaqeeyaa computerkaaga ama laptopkaaga adigoon ogeyn qof hadduu USB geliyo wax alla wixii ku jira sawir documenti wuxuu ahaadaba wuxuu upload ku dhigayaa folder adiga ku qaas ku gooniya marka wax alla wixii la geliyo halkaas ayaa transfer lagu sameeyaa sababtuna waxay tahay inta badan viruska ugu badan computerka wuxuu ka soo galaa ama laptopka USB uu ka soo galaa marka dooni maysid computerkaaga iska furan ama laptopkaaga furan in qof kale isticmaalo marka hadduu isticmaalo wixii macluumaadka meesha ku jira halkan ayuu wareegaya marka waxa loogu talagalay qaab ah in la isaga ilaaliyo in aan la isticmaalin computerka ama laptopkaaga isla markaana haddii macluumaad aad isleedahay qof ka isticmaalayo inaad ogaatid halkaas ayuu ka keenaya marka waa software runtii aad khafiif u ah solo 1GB waxa halkan yaala USB laba jeer ayaan furaya waxa ku jira sawiro iyo documenti waxyaabo badan ayaa ku jira marka qofkii gelin lahaa wuxuu wataa USB noocu doonaha ahaado marka USB-gan iminka waxaanu sameynaynaa waanu ka saaraynaa computerka waanu ka saaraynaa kadibna waxaanu bilaabaynaa sidaan u isticmaalnay softwareka marka softwareka saan hore kugu sheegay waa portable uma baahna in lagu duubo hal mar ayaa laba jeer dhag lagu siinayaa marka la furo kadibna waxaa dhexaysa in setting lagu sameeyo secure laga dhigo aan la arki karin aan laga saari karin marka waa portable ugu horeyn bal aan ka saarno 1GB USB saako maqasheen dhawaaqa yar waxaanu ka saarnay USB-ga halkan ma yaallo marka iminka waxaanu aadaynaa softwareki halkan taalla marka ugu horeyn akhri waa muhiim softwareka waa portable uma baahna ku duubays laba jeer riix haddii aad aragtid mar dhowaan arki doonaa there is no disk in a drive cancel laba ama saddex jeer riix marka kan waa muhiim ha oran softwareka shaqeyn maayo softwareka wuu shaqeynaya qaabkan ayaa loogu talagalay inuu shaqeeyo marka waxaan sameynayaa right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay run as administrator waad ujeeda waxaa idiin sheegay there is no disk ayuu ku leeyahay cancel ayaa leedahay saddex jeer isla markii hore ayuu ka soo baxaya halkan ayuu soo fadhiisanaya softwareka saan ku aragno waa mid simple ah runtii dhankan wuxuu yaalaa mainka optionka iyo about marka waa connected iminka uu ku jiraa marka haddii aan eegno aan u laabano dhankan waxaa dhacaysa meesha uu soo gelin doono waa meeshan hadda waxba kuma jiraan saa ku aragtaan USB waxba kuma jiraan halkan ayuu soo gelin doonaa wixii macluumaad uu ku keediyey marka waxaa la doonayaa keliya optionka inaad tagtid markaad tagtid optionka waxaad leedahay haddii aad doontid start up with Windows marka softwareka waa portable wuxuu leeyahay xilliga windowga la soo shido ama restart lagu sameeyo la soo shid ayuu leeyahay ka qari hide waa ka qari start meeshuu ka bilowdo computerka start laga yiraahdo ka qari disable task manager waa naqaanaa haddii control alt and del lagu sameeyo wixii computerka socda disable ayaa laga dhigi karaa marka kanna ka qariyay ku leeyahay intaan marka haddii aan idhaahdo kan ka qari kan la soo bilow kan ka qari next time you use sidan ayuu kusoo baxaya inaad kusoo saarto ayaa la doonaya high to the start marka kaas waa bedeli doonaa okay ayaan leeyahay kan waxaan leeyahay disable task manager marka directory target meesha uu kugu keeni doono waa C USB system marka haddii aad doontid tabcan waad bedeli kartaa haddii aan idhaahdo get halkan aan idhaahdo waxaan samayn karaa meel aniga ii gooni ama magac aniga ii gooni hadda laakiin si automatic ahaana wuxuu ugu fadhiisanayaa C USB system oo adiga ku gooniya tabcan qof kaloo garan kara male halkan ayuu soo gelayaa isagoo USB system laakiin haddii aad doontid waxaad ku samayn kartaa in meeshii aad doontid aad gelin kartid adiga ku gooniya kan marka waxaan ku dirinaa sidiisa attribute muxuu yahay si normal ah qarsan adiga ayay kugu xiran tahay ama hidden and system labadaba waad ku samayn kartaa aad doontid markan waa muhiim hotkey ayaa la yidhahdaa sida lagu soo qaado marka haddii aan idhaahdo control oo sidan ah halkana alphabet ayaa saan u yaala marka adiga ayaa lagaa doonaya marka haddaan idhaahdo control iyo A ayaan ku soo celinaya haddii aan idhaahdo waxaan leeyahay iminka set ayaan leeyahay marka wuxuu leeyahay hotkey setting was being changed sababtoo ah wuxuu sameynayaa softwareka sida loo soo kiciyo adiga keliya aad soo kicisid waxaad ku samaynaysaa control A marka haddii aad doontid password aad gelinaysa password protection kaasoo ka dhigaya in qof kale haddii uu doono
oo ama damco inuu galo ama wax ka bedelo ama uu sameeyo uusan bedeli karin marka passwordkana halkan markaad ku gelisid user password confirm password set ayaa leedahay halkan kaas ayaad u samaynaysaa marka anigu password ma gelinayo si casharkan u fududeeyo idinku aad gelin kartaa laakiin control alt kan waan isla eegaynaa sida ayaanu ka dhignay marka optionkan san ayaan u samaynay saa ku aragtaan kadib markii aad samaysid iminka mainka ayaad ku laabanaysaa marka waxaad samaynaysaa ha xirin wax kale ha samaynin waxaad leedahay hide ayaad leedahay ama qari ayaad leedahay qari markaan idhaahdo wuxuu leeyahay xusuuso control iyo a ayaa la doonayaa in aad ku soo celisid okay ayaan leeyahay iminka waxaan samaynayaa qof ayaa imaanaya si uu soo socdo wuxuu gelinayaa USB-gii waad maqashaan waadna aragtaan halkan hoose USB-gii ayaan geliyey mar alla markaan geliyo waxaan aadayaa dhankii kale halkan ayaan aadayaa kan aan xiro waa kii caadiga ahaa iminka halkan waxaan ku aragnaa waxaa soo galay USB system ayaa soo galay marka waan aragtaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Solar 1GB markan waa kan halkan ku jira marka bal aan isu eegno intaan wax kala sameyn waxaanu samaynaynaa keeni caadiga ahaa ayaanu tegaynaa kii caadiga ahaa waxaan leeyahay waa kan saa ku aragtaan kan halkan soo dhig kan halkan soo dhig marka kan waxaa ku jira 1 2 3 4 kana waxaa ku jira waa ujeeda date-ka xilliga la sameeyey haddii saan usii furo waa kana ujeeda waxaad ku aragtaa wixii halkan ku jiray inuu isla markii automatic ahaan uu soo dhigay halkan usaan usoo dhigay USB system uu soo dhigay marka waxaan ku aragnaa in haddii aan eegno kan spyga uu soo qabtay inay ku jiraan sawirkan oo kale uu ku jiro asxaabta garoonka Old Trafford ee Manchester halkan uu ku jiro Miss Hannah Ismail halkan uu ku jiro kale halkan uu ku jiro shakhsi aad u taqaanaan Mr Elias iyo halkan waxa yaala waxyaabaha muhiimka oo qofka ku xirtay emailka passwordka bangiga wax walba halkan ku yaala iyo wixii macluumaad ay halkan lasaan loo soo geliyay ay ku jiraan marka qaabkan ayuu u soo qabtaa marka si aan u xaqiijino mar labaad waxaanu samaynaynaa kan gebi ahaan waxaanu ka saaraynaa USB-gan delete ayaan ku leenahay kan kale ee USB-gii qofkii uu soo geliyo halkan ah waxaanu samaynaynaa gebi ahaan sawirada waxaanu kaga tegaynaa sawirka shanaad ayaanu kaga tegaynaa inta kale waan ku daynaa marka number 5 halan ayaan ku daynay kadibna waxaanu samaynaynaa waan ka saarayaa iminka waad aragtaa waan ka saaray marka waxaa xusuus mudan halkan haddii aan ku laabto oo ah meesha uu keedin doono waxba kuma jiraan hal sawir iyo waxaan kaga tagnay oo kaliya iyo macluumaadkii kale oo sawirkaasna ah number 5 marka iminka aan ku laabto mar kale aan geliyo USB-ga aan soo geliyay uu soo galay iminka waxaan leeyahay minimize waxaan arkaa USB system kana iska xiro USB system NC-ga ku arkaa markii saan u furo mar labaad aan furo meesha ugu dambaysa aan furo maxaad aragtaa number 5 waxa ku soo horay sawirkii Mr Elias oo jooga waddanka Austria iyo waxyaabihii hadda aan kaga tagnay oo sidaan ahaa marka shaqada uu qabto waa saas wuxuu soo qabtaa kaliya wax alla wixii halkan la geliyo cabirka wuxuu doonaa ha ahaado isla markii copy ku sameynaa tabcan cabirkaaga hadduu yar yahay copy ma wada samayn karo wuxuu u baahan yahay meeshii la geliyo cabirkiisa marka haddii aan doono inaan soo celiyo hadda waxaan ku soo celinayaa control iyo a oo markii aan ku sameynay waa kana ujeeda hore ayaan ka soo celiyey control iyo a ayaan isla qabtay waan soo celiyey kii uu ii qabtayna isaga ayaa ii sheegaya macluumaadkiisa iyo wuxuu ku sameeyey marka hore ayaan ka tirtirayaa si aan loo arkin marka haddii aadan si horda kuu sheegay optionkan wuxuu sameynayaa in aad password ku xirtid xilliga control a aad soo samaysid isla markii passwordka uu soo baxo horena aad ka isticmaashid marka qaabkan softwareka isagoo full versiona wuxuu ku jiraa shabakada sologroups.com haddii aad member ka tahay waad ka download garayn kartaa waxaana filayaa casharkan inuu ahaa cashar yar oo aad u xiiso badan oon ku aragnay qaabka ugu fudud ee loo isticmaalo basaaska USB 1.3 waa USB spy on a USB content waxaad spy ku samaysaa ama aad eegta ama basaastaa wax walba oo computerkaaga soo geliya sababtoo ah adigoo ma raadsan wuu ku yimid USB-ga saa awgeeda xaq ayaad u leedahay wixii halka ku jira inuu maaragtay halkan uu ku geliyo marka tabcan mar walba u isticmaala si dhanka waxbarashada ama educational u isticmaalina in dad wax looga xado ama USB-ga looga copy loogu samayso wadamada qaarkood tabcan waa sharci darro xabsi ayaan lagu gelaya waxaan filayaa casharkan inuu ahaa mid aad u xiiso badan wixii macluumaada ay ku saabsan casharkan mar walba info@sologroups.com ayaa kusoo diraysaan anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu